السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى مقالكينا waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabaha diinteenu inoo xalaaleysay iyo waxyaabaha inaga xaaraantimeysay إن شاء الله تعالى inaga quraankeena kasoo eegi doono quraan kariimka Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu inoo xalaaleeyay waa wax kasto nafteena u wanaagsan wax kasto inaga xalaaltay naga xaaraantimeeyna wax kasto nafteena ku xun waxa Allah subhanahu wa ta'ala ku amaanay anbiyadiisa inay ahaayeen anbiyadiisa soo diray inay ahaayeen kuwa dadka fara inay cunaan ay quutaan waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala u xalaaleeyay ayna ka tagan waxyaabahu ka xaraan yahay قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنبياء نبي كستر صدر ومديس وحو كبورين شري إني عنان وحيابها وناكسن وحو الله سبحانه وتعالى يسوع الله لي تدك ودنا قرآن كيسي نوغو حصي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وارتضي هون وحي دولك يغلوش يالا ولبنا حلاش وناكسن عنا الله سبحانه وتعالى وحو إنو بورني إن وحي حلاشا عنه haddaynu Soomaalina hayna haga word baynu kan yiraahnaa waxaan yiraahnaa wixii ku cuninba waa la cunaa taasina laftigeedu ma fiicna wax sax ma ma wixii xalaash oo mucun wixii xaaraanta ahna iskaga tag oo maxaynay ha u dhawaan way farabadayn Allah subhanahu wa ta'ala inta aayadood ay quraankiisa kaga sheegay inaynu cunno waxyaabaha wanaagsan aynu ka fogaanana wax kasta oo xun Allah subhanahu wa ta'ala isagoo nabiga sallallahu alayhi waxa uu yasalunaka maada uhilla lahum qul uhilla lahum at-tayyibat nabi Allah waxay ku weydiinayaan waxa u xalaash ah waxaad ku tiraahdaa waxa inii xalaash ah wixii wanaagsan weey oo waxa wanaagsan ayaa la inii xalaal yeelay wixii xunna waa la inii diido waa la inaga nihiyay hadaba haddaynu inta ku soo koobno waxa Allah subhanahu wa ta'ala inoo xalaaleeyay oo inoo baneeyay haddaynu ka eegno xaga kale waxa Allah subhanahu wa ta'ala inaga xaaraantimeeyay oo inoo diiday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu anbiyadiisa ku amaanay waxay ahaayeen kuwa dadka وحلالين شير وحيابها وناكسن كان حريم شيري وحيوحن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحكستوحن الله سبحانه وتعالى وينودي ذي وحيولي وحاسي نفتينا ومفيعنا يا دينتينا ومفيعنا ايه كفو قادة الله سبحانه وتعالى وحكستو إنو حلالي وواحد دنتين كجرتو وإنو وناكسن وحكستو إنك حارين لأنو وحينو دنتين كجرين أونا إنو وناكسنين دينتين إيو نفاهنا بينو وناكسنين الله سبحانه وتعالى وحيابها كله وينجح حارنتمي وح كمده لحم الخنزير الميتة وحيابها صلنا الله سبحانه وتعالى وينجح حارنتمي وينودي ذي الدين تاني الإسلام كوح كستو وناكسن وينو حلال يا شيء وح كستو حنا وينودي ذي أو وينجنيسي إلى أن قد يقوي حلاش قوته حاران تنكف هذا موضوعين حقا بين كسوكو بينا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.